Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada barnaamijkeena arrimaha looteriga iyo dhoofka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku eegaynaa su-aal aad u muhiim ah oo aad u soo laalaabatay, taasoo ah Canada ma leedahay looteri? Looteri waxa weeyaan waddan bixiya in nasiib lagu soo galo oo green cardkiisa iyo waddankaas degenaanshihiisa uu dadka ku siiyo si nasiib ah, isaga oo mataqaanada dooranaya dadka inta uu rabo sanad walba soo qaadanaya. Marka looteriga waa nasiib, ma aha qaxooti. Su-aashan aad bay muhiim u tahay dadka daneeya arrimaha dhoofka iyo arrimaha Canada. Haddaba haddii aad rabtid inaan muuqaalkan ku faahfaahiyo arrimaha badan ee dadka ay ku khalkhalaan, waxaan kaa codsanaynaa in aad subscribe noo saarto channelkan, sidoo kalena like aad nagu dhiirigelisid. Ku mahadsanid. Haddii hore noola joogtayna waxaan ku leenahay muuqaaladii hore wixii aad ka faa'iiday iyo kuwan wixii aad ka faa'iidi doontidba insha Allah ilaahay ha kula garab galo. Muuqaalkeenan haddaan u guda galo, DV looteriga waxaa isticmaala hal waddankaasna waa waddanka Mareykanka. Way jiraan waddamo kale oo isticmaala, laakiin waddanka officialka oo sida saxda ah ee waddamada adduunka oo dhan uga qayb qaataan waa waddanka Mareykanka. Marka maxay isticmaalaan Canada? Canada maxay caan ku tahay ayaa ah su-aasha muhiimka ah ee la isweydiinayo. Canada waxay qaadataa qaxooti, sidoo kalena Canada waxa ay lagu imaan karaa habab kale sida 5 group iyo sida in casuumaad qofka loo fidiyo oo mataqaanaa qofkii daneynaya inuu qofka la soo qaado oo waddanka Canada jooga inuu soo qaadi karo qof oo casuumaad u fidin karo. Sidoo kalena looteri ma jiro wax la yiraahdo, laakiin 5 group oo ah in dadka maaragtay hab 5 group lagu soo qaado. Sidoo kalena barnaamijkan la wada yaqaan ee qaxootiga ah, kaarka qaxootiga in la xariisto kadibna qofka haddii nasiibkiisa u soo baxo oo sidaas ku yimaado waddanka Canada. Barnaamijkeena waa barnaamij dheer. Waxaan muhiim ah inaad la socotid ilaa muuqaalka aan ka dhamaystirayno arrimaha dhan ee looteriga looga baahan yahay qofka. Marka waxaynu isweydiinaynaa, haddii la yiri waddanka Canada laguma imaan karo looteri, sidee baa lagu imaan karaa? Sidee casuumaad ugu soo diri karaa qofka qof kale? Casuumaad waxay weeyaan in qofka horta uu wato baasaboor aqoonsi fiican leh, sida wadamada Kenya iyo Ethiopia, in qofku uu duulimaadyo 2 jeer ka badan uu sameeyey oo uu waddankiisa maana waddan kale tagay. Marka dadku badanaa waxay sameeyaan wadamada Afrika ay 2 jeer 2 waddan ka kala tagaan, kadibna casuumaad ayaa loo soo diraa. Sidoo kale arrinta qaxootiga, kaarka qaxootiga Uganda laga qaataa, waddanka Uganda magaalada Kampala. Markii kaarka qaxootiga aad qaadatid waxaa kuu fududaanaysa in 5 group ay iibsataan oo idinkoo badan 5 qof ah aad ku tagtaan waddanka Canada. Way iibsadaan dadka qaar oo 5 groupkaasi dadka way ka iibsadaan. Waxaa kaloo furan in qaxootiga aad sugtid oo mar allaaliya markii nasiibkaaga uu gaaro ay Canada soo hadasho aad ku tegaysid. Laakiin fursadaha hore oo dhan ayaa ka bannaan, waana wax macquula 100%. Waana systemka ugu fudud ama waddada ugu fudud ee Canada lagu tago. Laakiin waxaan dadka iyo bulshadaba u sheegayaa inuusan jirin wax looteri ah. Haddii aad aragtaan website looteri ku qaraabanayana iska ilaalisaan, waa fake. Waxaa laga yaabaa inay yihiin dad raba inay dadka dhacaan. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa inaad feejignaataan, barnaamijka arrimaha dhoofkana channelkan aad kala socotaan. Sidoo kalena subscribe-ta iyo like-ta iyo muuqaalada aan soo wadno oo aad si taxan ah oo la socotaan ayaan idinkugu bishaaraynaynaa.